mutuleelka ayaa saf dheer loo galay iyadoo laga qaadayo dabaqa ugu hooseeya maktabadda qaranka lana geynayo dabaqa ugu sarreeya ee maktabadda qaranka oo laga hayo dhigista mutuleelka si ay u soo baxdo quruxda maktabadda shaqaalaha iyo madaxda ayaa iska kaashanaya iskana caawinaya habka ay ku soconayso shaqada isxilqaan waana shaqo ay si wada jira wada hayaan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib-u-heshiisiinta qaranka iyagoo si hufan uga wada qayb qaadanaya isxilqaan dalkaaga ku dhiso gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowladda soomaaliya xasan abshirow maxamed ayaa sheegay in maalintii la bilaabay isxilqaan iyo maanta ay kala duwan tahay isagoo geesta kalena carabka ku dhuftay in shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ay si fiican uga soo qayb galeen ololaha isxilqaan hay-ad walba boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 waxaa la dhihi karaa inay yimaadaan kana qayb qaataan barnaamijka isxilqaan marka dowladnimadu waa meeshii la rabay ayay maraysaa wadadii la rabay ayay ku socotaa shaqaalaha dawladana way u hoggaansameen barnaamijka isxilqaan oo madaxdu ay iclaamisay si wanaagsan way ku socotaa marka waxaan rajaynaynaa inta dhiman inta ay ka faanin inay qaadi doonaan marka aad baan u warqabnaa mararka qaarkood waa imaana waa kormeernaa kasta kale xogayaha maamulka iyo maaliyadda guddiga madaxa bannaan ee dib-u-heshiisiinta qaranka Sayid Cali Cabdi Maxamed oo guddiga u hadlay ayaa yidhi guddiga dhammaantoodba waa wada waayeel haddana waxay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dhismaha dalka shaqadana si fiican bay isugu dhacday waa ilaahay mahadiisi waana odayaal horeyba uga soo shaqeeyay iskaa wax u qabso dadkii ku dhisay waay iskaa wax u qabso maantana isxilqaan bay ku dhisayaan waxaana diyaar waxaa ilaahay mahadiisi ah ka soo qaybgalkeeni maanta aan ka soo qaybgalnay xubnaha guddiga iyo shaqaalaheena oo wada dhan wareegii toddobaad ayna lagu soo dhaweeyeen hogaamiyaashii hogaaminayay isxilqaan dhismaha maktabadda qaranka ayaa intii aan lagu bilaabin barnaamijka isxilqaan wuxuu ahaa mid uu si weyn uga muuqanayo burbur xoog loo ka soo gaadhay burburkii dagaaladii sokeeye ee dalku soo maray balse maanta waa maalin kale oo maktabadda qaranku ka duwan tahay maalmihii hore cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho